waxaa la sheegay ninka fuulay buurta ugu dheer ee adduunka buurta Everest waxaa la sheegaa ninka fuulay markuu fuulayay wuxuu cun ahaan ugu qaadaa lahaa liin dhanaanta wuxuu isticmaalay liinta markuu dhameeyay xitaa qolofkeeda uu cunaha la sheegaa marka waxay ka mid tahay faa'iidada ay leedahay liinta. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وكسو دوادا channelكي بلدي official هدي أي تاي مركو هوريسا فضلا سبسكرايب صار لأنه وداق أصحابتا هذا ما انتو حكا هدلينا حرب أورت ضد بدنا إيقسو عصدي وأصحابتي دا ولوق إيقلسو هدلين يقول لهن حسن ومادام channel ليد هاي كسو هذا محل هاي فائدوين قدرت إليهين فهمت ما انتو حكا هدلينا وجدين liin dhanaan liinta faa'iidada ay u leedahay bulshada iyo waxyaabaha ay ka hortagto haddii aan sii wadno faa'iidooyinka laga helo liinta waxyaabo fara badan oo dhanka qudaarta faa'iidooyin badan ay noogu leeyihiin oo ilaahay noo soo saaray qudaarta marka waxaa rabaa maanta waxaan rabaa inaan idiin tusaalooyin inaan idinkaga soo qaado jirkeena faa'iidooyinka uu leeyahay liinta tusaale ahaan hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo faa'iidada koowaad maxaa horta liinta waa ogtihiin waxaa laga helaa waxay leedahay horta acid waaye waxaa ku jiro maado la yiraahdo citric acid maadadaas maxay jirka u tartaa citric acidka waxa waaye maadada sunta ay jirkeena ka soo saartaa waxay leedahay vitamin C waxaa laga helaa vitamin C liinta waxay leedahay vitamin C ga muxuu jirkeena waxtar u leeyahay vitamin C ga jirkeena wuxuu waxtar u leeyahay unugyada dhiigga cas ayuu filtreeyaa acidka maxaa waaye liinta acidkeeda unugyada jirkeena macnaha faa'iidada liinta ay u leedahay waxaa la sheegaa qofka marka uu hergab markuu ku dhaco oo kale liinta faa'iidada ay leedahay waxa waaye adigoo hergabaysan haddii galaas biyo oo liin ku miirto oo maalintaas cabto hergabka uu kaa yaraanayaa sababtoo ah viruska maxaa la dhahaa virus keeno soo ma hergabka viruskana way yareysaa macnaha oo jirkeena uu keeno maxaa kaloo asxaabay faa'iidada liinta ay leedahay oo waxaa rabaa hadda oo kale aan hadda shaahigaana cabayaa liinaa ku darsanaya marka maalin walba haddii adigoo shaah cabaya macnaha xabad liin ku darsato liintaas waxyaabo fara badan macnaha u leedahay waxtarka u leedahay maxaa la dhahay faa'iidooyinka liinta u leedahay waxaa ka mid ah maqaarka jirka maxay ku sameysaa maqaarkaaga waxay ku sameynaysaa maxaa la dhahay way nuurinaysaa way ifinaysaa markaan yani faa'iidada liinta ay ka mid tahay maxaa kaloo faa'iidada liinta oo aan kusoo qaadanaynaa maanta waxaa jiro jirkeena waxyaabo fara badan acidyo fara badan ku jiro tusaale ahaan acidkaas laga dhex helo maadooyinka laga dhex helo waxaa ka mid ah potassiumka muxuu jirku faa'iido u leeyahay marka liinta faa'iidadeeda kale waxaa kaloo ka mid ah waa kasoo hadalnay maqaarkay nuurisaha idin dhahay maqaarka yani liinta waxay waxtar u leedahay maxaa la dhahay maqaarka madoobaantiisa way nuurisaa way ifisaa marka waxaa kaloo ka mid ah liinta faa'iidadeeda waxaa kaloo la sheegaa dheefshiidka ee jilcisaa mandhicirada ee u roon tahay tusaale ahaan haddii adiga xabad liina maalin walba biyo ku miirato maxaa la dhahay waxay yareysaa maxaa la dhahay qofka calool istaagiisa yareysaa dheefshiidka way jilcisaa macnaha tusaale ahaan mandhicirada qaabka u shaqeeyaan mandhicirada macnaha ay fududeysaa waa sida macnaha adigoo hadda maalin walba biyo haddaa liin ku miirato oo adi cabto waxaa hubaala in dheefshiidkaaga oo mar walba oo yani si automatic u shaqeynayo macnaha qofka horta normal ahaan hadda qofka dheefshiidkiisa uu shaqeeyaa laakiin dadka badanaa ay ku badan yihiin calool istaaga iyo maxaa la dhahay waxaan kula talin lahaa inay isticmaalaan maalin walba xabad liin inay isticmaalaan maxaa kaloo macnaha u leedahay maxaa kaloo ay noo leedahay liinta waxaa kaloo la sheegaa maxaa la dhahay hadda tusaale ahaan hadda liintan waa liin iska caadi ah
dadka kaliya waxay ku miiraan liinta ama meel ay ku miiraan ama cunada ku miirtaan liinta laftirkeeda maqaarkeeda laftirkeeda maxay faa'iido noo leedahay. waxaa la sheegaa hadda ka hor faa'iidada ay liinta leedahay waxaa ka mid ahaa ninka fuulay buurta ugu dheer ee adduunka, buurta Everest la dhaho. waxaa la sheegaa ninka fuulay markuu fuulayay wuxuu cun ahaan u qaataa lahaa liin dhanaanta, wuxuu isticmaalay maxaa la dhahay liinta markuu dhameeyay xitaa qolofkeeda uu cunaha la sheegaa. marka waxay ka mid tahay faa'iidada ay leedahay liinta. markuu cunay markuu kasoo laabto oo kasoo degaa waxaa la weydiiyey maxaa kugu kalifaan lahaa liinta inaad cunto oo cun ahaan aa qaadato. wuxuu dhahay liinta waxyaabo fara badan ee ka hortagtaa. tusaale ahaan inta buurta fuulitaankeeda waxay iga caawisay aanan gaajoonin, micnaha xitaa gaajada xitaa way ka hortagtaa liinta. faa'iidadaas ay ka mid tahay. waxaa kaloo ka mid cayilka, qofka cayilan oo inta badan calool leh, tusaale ahaan caloosha way yareysaa cayilka qofka. waxay kaloo waxtar u leedahay baarka, waxay kaloo waxtar u leedahay baarka filtration oo liver, micnaha baarka saliidda ku jirta baarka ay yareysaa jufinta baarka. baan xanuunkana way u roon tahay. maxaa kaloo liinta faa'iido ay noogu leedahay waxaa kaloo ka mid ah waa soo sheegnay soo maha dheefshiidkana way u roon tahay, micnaha qofka oo calool istaagiisa bato way u roon tahay liinta inuu isticmaalkeeda. waxaa kaloo ka mid liinta waxaa ku jiro aasiidyo badan. citric acidka maxaa citric acidka waa acid ku jira liinta, sidaa ku jiro liinta. citric acidka muxuu jirka u qabtaa? tusaale ahaan citric acidka wuxuu yareeyaa acidyada ku jiro jirka. marka liinta ashita leedahay citric acidka waxay yareysaa ayna ka hortagtaa acidyada ku jiro jirka. waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo faa'iidooyinka liinta. maxaa kaloo ka mid maadooyina ku jiro liinta oo laga helo dhexdeeda. maxaa kaloo ka mid dhexdeeda waxaa ku jiro potassium, calcium ku jiro. potassiumka maxay waxtar u leedahay? waxaa kaloo la sheegay, waxaa kaloo faa'iidooyinka liinta ka mid waxaa la sheegaa inay micnaha inay ka hortag ku sameyso kansarka. qaabkee ka hortag ugu sameynaysaa kansarka? waxaa la sheegaa maado ku jirto oo la yiraahdo maado ku jirto liinta oo la yiraahdo citrus, taasoo ka ilaalisa jirka dhaawaca ugu yimaada. waxaa kaloo ka ilaalisaa teetanada jirka ku sameyso dhaawac ahaan. markii teetanada qofka ay ku dhacdo, dhaawacaasoo teetanaasoo u sababto qofka inuu dhaawacaas oo ka qaado waxyaabaha oo jirka waxyeeladiisa ka mid ah. waxay sameysaa oo waa la sheegaa saableyda neefta, waxay yareysaa caabuqa qofka qun xanuunka dadka ku dhaca haddii ay isticmaalaan liinta. waxaa laga yaabaa in micnaha liintaas ay u sababto inay ku reystaan, ay ku bogsadaan. meelahan ma aragtaa dadka quun ay u yaqaanaan. quunka dadka inta badan la buko haddii ay isticmaalaan daily liin, haddii isticmaalaan maalin walbo, waxaa la sheegaa inuu ka yaraanayo maxaa la dhahayay xanuunkaasi oo dhunta ugu dhaco. maxaa kaloo ka mid liinta waxaa ku jiro maadooyin sida potassiumka. muxuu jirka faa'iido u leeyahay? waxaan ka hadlaynay faa'iidada ay u leedahay liinta jirka bini'aadamka. faa'iidooyinka liinta waxaa kaloo ka mid maadooyinka ku jiro waxaa ka mid maado la yiraahdo potassium acidka dhexdiisa. potassiumka maxay faa'iido u leedahay jirka bini'aadamka? potassiumka ku jira liinta waa maadadaasoo unugyada maskaxda taasoo si fiican ugu shaqeysiisa iyo halbowlaha. maadooyinka ka mid waxaa kaloo ka mid calcium. liinta waxaa ku jiro calciumkaas oo waxtar u leh ilkaha qofka. tusaale ahaan marka ciridka oo dhiigga oo sameeyo waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid qofka ciridka dhiigga oo sameeyey. ciridka dhiigga waxa keena waxaa waaye fitamiin la-aantaasna waxaa inaa mar walba isticmaashaa liin dhanaanta, taasi waxtar kuu lahaan doonto, kaana istaajin doonto marka uu dhiigo ciridka.
asxaabi haddii aad jeclaateen videogan waxaa idinka codsanayaa inaad iisoo sheegtaan fruitska ama khudaarta taasoo ay kaga soo hadli doono faa'iidooyinka ay u leeyihiin bulshada. waa ku mahadsantihiin daawashada videogan. waxaan idinka codsanayaa inaad share gareysaan, like, comment iyo waa idinka sugan. Thank you.